Riya ka soo bilaabatay guri ku dhow garoonka Afisyoone ee magaalada Muqdisho, kuna gabagabowday gabadhii ugu horreysay ee Afrika iyo Bariga Dhexeba ee noqota duuliye ka tirsan ciidamada cirka xilli dumarka aysan shaqooyinkaasi qaban jirin. Maanta waxaynu qaadi doonaa taariikhda duuliye sare Asli Xasan Cabaade oo ahayd duuliyihii ugu horreeyay oo dumar ah ee Afrika iyo Bariga Dhexe ee kaxeeya diyaarad dagaal, kana mid ahayd ciidamadii cirka ee dalka Soomaaliya. Haddaba ku soo dhowaada taariikhda Asli Xasan Cabaade. Asli Xasan Cabaade waxa ay ku dhalatay magaalada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. Waxa ay waxbarashadeeda hoose ku soo qaadatay isla magaaladaas, waxaana xilligaas reerkeedu u guureen magaalada Baydhabo, maadaama aabaheed oo ka tirsanaa booliiska Soomaaliyeed halkaas loo bedelay. Asli waxa ay magaalada Baydhabo ku qaadatay waxbarashada dugsiga dhexe, waxa ayna u wareegtay magaalada Muqdisho si ay u dhammaysato waxbarashadeeda dugsiga sare. Waxa ayna waxbarashada dugsiga sare ku qaadatay dugsiga Raaga Ugaas ee magaalada Muqdisho. Gurigooda oo ku dhowaa xerada ciidamada cirka ee Afisyoone ayaa sababay in ay jacayl fara badan u qaado duuliyanimada. Waxa ayna Asli subax waliba ku indho-doogsan jirtay diyaaradaha ciidamada cirka oo marna kacaya marna soo degaya, iyadoo go'aansatay in mar uun ay garoonkan diyaarad ka kiciso kana soo dejiso. Asli in ay noqoto duuliye diyaarad military iyada oo dumar ah waxay ka soo martay caqabado badan, maadaama shaqadani ay tahay shaqo aan inta badan dumarka looga baran. Walaasheed Caasha Xasan Cabaade oo ahayd xoghayaha koowaad ee Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa ka mid ahayd dadka qoyskeeda ka mid ah ee suluugsanaa inay Asli ka mid noqoto ciidamada cirka Soomaaliyeed. Waxaana Asli dhowr mar ay walaasheed weydiisatay in ay u geyso madaxweyne Maxamed Siyaad si ay oggolaasho uga hesho in ay ka mid noqoto ciidamada cirka loona tababaro duuliyanimada. Balse Caasha Xasan Cabaade ayaa kula talisay xilligaas walaasheed Asli Xasan Cabaade in aysan shaqadan dooran ee ay noqoto dhakhtarad beddelkii ay ka mid noqon lahayd ciidamada cirka. Ugu dambeyn, Asli Xasan Cabaade waxa ay la kulantay madaxweyne Maxamed Siyaad, waxa uuna dood dheer kadib u oggolaaday inay ka mid noqoto ciidamada cirka Soomaaliyeed. Markii Asli Xasan Cabaade ay ka mid noqotay ciidamada cirka, waxa ay tababarkii ugu horreeyay ku qaadatay dugsiga tababarka diyaaradaha ee ku yiila xerada Afisyoone, waxaana jiray tababaro kale ee ay dalka dibaddiisa uga baxday si ay sare ugu qaaddo xirfadeeda duuliyanimo. Waxa ay Asli ka mid ahayd ciidanka cirka dalka Soomaaliya, iyadoo howlgalladeedii duuliyanimo ay dhaceen intii u dhaxaysay 1970 ilaa 1990. Markii ay burburtay dowladdii militariga, Asli Xasan Cabaade waxa ay u guurtay dalka Mareykanka, waxaana xusid mudan in ay sii waday howlaheedii duuliyanimo maadaama ay haysatay rukhsadda duuliyanimo ee Federal Aviation Administration. Intii ay ku guda jirtay arrimaha duulimaadyada, waxa ay diiradda saartay hagista tababaridda jiilka cusub ee doonaya inay duuliyayaal noqdaan. Asli markii ay ka fariisatay howlaha duulimaadyada, waxa ay diiradda saartay arrimaha bulshada iyo inay dadka la wadaagto sheekadeeda, maadaama ay tahay haweeneydii ugu horreysay ee Afrika iyo Bariga Dhexeba duulisa diyaarad military. Sheekada Asli Xasan Cabaade ma aha oo keliya taariikh duulimaad, waa sheeko ku saabsan geesinimo, go'aan adag iyo jibinta xuduudo la aaminsanaa in qof dumar ah uusan ka tallaabi karin. Waxay ka soo baxday bulsho aan caadiyan haweenku ka gaari jirin heerarka sare ee militariga, haddana waxay noqotay mid ka mid ah haweenkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee duuliya diyaarad dagaal. Intii ay ka tirsaneyd ciidanka cirka Soomaaliya, waxay muujisay karti iyo adkaysi, iyadoo ka shaqaynaysay waqtiyo adag oo isbeddello iyo dagaallo leh. Kadib markii ay u guurtay dalka Mareykanka, ma aysan joojin halgankeeda. Waxay sii waday duulimaadyada, waxbaridda iyo hagista jiilal cusub. Asli maanta waa astaan nool oo muujinaysa in aqoonta iyo dadaalku aysan lahayn xad. Waxay si gaar ah u dhiirigelisaa gabdhaha iyo haweenka inay ku dhiiradaan cilmiga, tiknoolajiyadda iyo duulista meelo mar hore loo arkayay kuwa ragga uun u gaar ah. Ugu dambeyn, sheekada Asli Xasan Cabaade waxay caddaysay in hal qof oo riyo leh uu bedeli karo aragtida bulsho dhan, taasoo ka dhigaysa magaceeda mid weligiis lagu xusuusan doono taariikhda. Waxaana halkaas ku eg sheekada haweeneydii ugu horreysay Afrika ee duulisa diyaarad military, Asli Xasan Cabaade.